kasoo qayb gashay munaasabadan muhiimka ah iyo bahda saxaafadda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. runtii barnaamijka maanta halkan ku daafurayno ee wacyigelinta iyo horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada gobolka Banaadir wuxuu annaga maamul ahaan noo leeyahay ahmiyad gaar ah. waana muhiim dhalinyaradu in doorkeedu uu noqdo mid cad, dhalinyaradu ay kaalin weyn ka qaadato dhammaan arrimaha dalka lagu horumarinayo, ha noqoto dib u dhiska, ha noqoto dhanka tayeynta waxbarashada, ha noqoto horumarka guud ee dalka, dib u dhiska kaabayaashii dowladnimada. arrimahaas oo dhan waa arrimo runtii muhiim u ah qof kasta oo Soomaaliyeed, gaar ahaan qof kasta oo dhalinyaro ah. waxaan u mahad celinayaa guddoomiyaha dhalinyarada iyo maamulka gobolka oo runtii juhdi geliyey sidii maanta dhalinyaradan fursadan loo siin lahaa, la isugu keeni lahaa, looga wada hadli lahaa arrimaha muhiimka u ah gobolka Banaadir. wax kasta oo laga hadlayo masiirka ummadana cidda ugu mudan ee loo baahan yahay in lagala tashto ama ay talo ka keenaan waa dhalinyarada Soomaaliyeed. waddankeenu marxalado badan soo maray. marxaladii xorriyadda markii la qaadanayna dadku u istaagay waxay dhalinyaro oo 13 SYL lagu xasuusto. kadibna marxalad walba oo dalkan soo maro cidda lafdhabarkeeda u ah waa dhalinyarada Soomaaliyeed. sidaas daraaddeed annaga waxaan rabnaa in barnaamijkan daafurka maanta oo aan isleenahay wacyigelin muddo bil ku siman ilaa iyo maalinta dhalinyarada 15 May sidii loogu diyaargaroobi lahaa, taasna cidda aan rabno inay qabanqaabadeeda iyo qorshaheeda dejiso, diyaariso, u diyaargarowdo maalintoodana u tusaan bulshada caalamka sida dhalinyarada Soomaaliyeed uga go'an tahay dalkooda inay horumarsadaan. marka waxaan ka codsanaynaa barnaamijkan maanta daafurka bilowda wacyigelintii horumarinta inaad kaalin mugle ka qaadataan, loo diyaargaroobo maalintaas oo dhalinyaradu ay leedahay 15 May. xuska keliya ma ahe, waxaan rabnaa inay noqoto qorshaha wacyigelinta iyo horumarkaba mid joogto ah. laakiin bacdaba munaasabadaas ee hadda nagu soo socoto waxaan isleenahay ahmiyad gaar ay leedahay. dhalinyaradiina qof walba wuxuu ka yimid degmo, buwaax, laan. adduunkana sida layskula socdo waxay tahay qof walbaba in dariskiisana uu ka warqabo. dhalinyarada laanta degan ama waaxda deganna ay noqdaan dhalinyaro waaxdooda sidii ku horumar leh ka shaqeeya, kadib u gudba heer degmo ilaa iyo heer gobol. kadibna bacdama caasimadii Muqdisho ay tahay, dhalinyarada laga sugayo inay waddanka Soomaaliyeed oo dhan horumarkeeda ka qayb qaataan waa dhalinyarada gobolka Banaadir. mas-uuliyaddaas dheer oo idin saaran oo runtii ahmiyaddeeda leh, waxaan rabnaa in loo istaago. qof walba oo Soomaaliyeed waa muhiim. qof walba oo Soomaaliyeed kaalin buu ku leeyahay dalkan iyo horumarkiisa. sida keliya ay ku imaan kartana waxay tahay kow, dhalinyarada oo is-abaabusha, ka shaqaysa sidii uga xaajoon lahaayeen arrimahooda muhiimka ah, kadibna xal uga heli lahaayeen dalkan iyo xaggeen u wadnaa. annaga waxaan rabnaa bishaan qorshaha iyo barnaamijka aan rabno waax walbo iyo laan walbo iyo degmo walbo wax lagala soo tashtay oo la og yahay oo isla socda, kadibna aanoo keentaan qorshihii ah 20 sano kadib dhalinyaro maxaa jeclaan lahaydeen in gobolkan Banaadir uu noqdo. 20 sano kadib maxaa jeclaan lahaydeen dalkeenna inuu ku tallaabsado. arrimahaas iskama imaan karaan. cid walbo, qof walbo oo damiir leh, muwaadin ah, mas-uuliyad ayaa ka saaran. mas-uuliyaddaas waxaa gudan kara marka qofka muujiya daacadnimo, qofka muujiya muwaadinnimo, qofka muujiya inay
dowladnimo iyo nidaam uu yahay xalka keliya ee horumar lagu gaari karo. marxaladaha amaanta joogno caalamka intiisa badan waa soo maray. waad aragteen Yurub iyo Mareykanka dhalinyaradooda 80% shaqay haystaan, annagana 10% ma dhama. sababtan maxay tahay? sababtu waxay tahay dagaaladii adduunka koowaad iyo labaad kadib adduunku wuxuu fahmay muhiimadda ay leedahay waxbarashada, muhiimadda ay leedahay isqadarinta, wada noolaanshaha, wada shaqaynta. taasna waxaa la rabaa hadda dhalinyaradan fursad inaad jiilka cusub u abuurtaan. taas ayay ku imaan kartaa waddankeennii oo aan khayraadkiisa la soo baxno, horumarkiisa ka shaqayno. qof walba oo dhalinyaro ah inuusan shaqo la'aan noqonin, oo qof walba uu ku hamiyo shaqada ugu fiican inuu helo, dalkan inuu u tartamo, inuu madaxweyne ka noqdo, inuu wasiir ka noqdo. waxaasna waxay ku imaan kartaa qofka oo kow hamigiisa muujiya, tusa inuu diyaar u yahay dalkan inuu dalkiisa ka shaqeeyo. intaas ka sokow waxaan rabnaa annaga maamulka gobolka Banaadir haddaan nahay dhalinyarada degmooyinka inay isku xirmaan oo ay u arkaan kow waxaan tafaraaruqa idinkala qaybinaya inta la iska daayo gobolka Banaadir wadatiin idinka dhexeeya, dalka Soomaaliya idinka dhexeeya, caasimadii dalka idinka dhexeysa. waxaasoo dhan waxaa la rabaa inaad noqoto wixii idin midayn lahaa. markaad midoodaan oo dantiina iyo danta maaragtay xaafadda iyo danta degmada iyo danta gobolka aad ka fikirtaan, tii dalkana waa imaanaysaa. marka waa wax isku xiran. waxaan aad idinkugu boorinaa wejiyadiina sidaa ka dheexanayo, diyaargarowgiina, imaatinkiina waqtiga hore inaad dhammaantiin diyaar u tihiin barnaamijkan wacyigelinta iyo horumarka gobolka Banaadir inaad kaalin ka qaadataan. soo sidaas maaha. marka qof walbo ha dhayalsanin waqtiyada oo maaragtay laysu imaanayo. waa muhiim aayahaaga inaad ka tashato, adiga inay kaa bilaabato. si adiga kaaga bilaabatana adaa lagaa rabaa inaad nidaamkii, disciplinkii iyo inaad horta u hoggaansamayso nidaam iyo dowladnimo inaad rabto in lagaa helo. kadib waxaan helaynaa inay wax walba noo hagaagaan. midda kale oo la socotaan marxalado waxaa lagu jiraa caqabado badan ay jiraan xagga siyaasadda, xaggii dhaqaalaha, xaggii arrimaha bulshada. magaaladan Muqdisho aad ogtihiin marxalado badan ay soo martay. berisamaadkii waxay ahaan jirtay magaalada ugu amniga fiican, ugu nadaafadda fiican. waqti baa jiray muxuu ahaa caalamka aan xornimadana ugu dagaalamaynay, meesha looga horseedayay waxay ahayd magaalada Muqdisho. africa oo dhan caan bay ka tahay. muqdisho waxaa la oran jiray Africa Riviera, oo dadka dalxiiska caddaanka inta usoo dalxiis tagaan ee goobaha muhiimka ay yimaadaan. taas marka waxay ku imaan kartaa qof kasta oo dhalinyaradiina ka mid ah inuu yidhaahdo caasimaddan waa caasimadeydii, magaaladan waa magaaladeydii, gobolkan waa gobolkaygii, dalkan waa dalkaygii. waa inaan sidii ahaan jirta aan kusoo celiyaa. annaga taas ayaan rabnaa in Muqdisho lagu soo celiyo sidii ahaan jirtay. caqabadaha kalena haysto waxaa ka mid ah magaaladan waxaa jooga barakacyaal fara badan, dad duruufo adag ku nool, dad 500 kor u dhaafay oo xaaladaha ay ku nool yihiin runtii aan ahayn xaalado fiican. tan iyo markaan maamulka nimid waxaan ku dadaalnay inaan mudnaan gaara siino dadka barakacyaasha sidii xal loogu heli lahaa. xalka ay u baahan yihiin maxay tahay? inay helaan xuquuqda qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed uu leeyahay. waxaan u aragnaa annaga dadkaas barakacyaasha ah inay u yihiin asad magaalada Muqdisho. waa haddii si fiican loo isticmaalo. kow caalamka waxaan ka dhaadhicinay maamulka gobolka Banaadir inuu diyaar u yahay inuu hormuud ka noqdo isku dubaridka iyo horumarka iyo sidii xal waara loogu heli lahaa arrimahaas. xalka waara marka maxay tahay? dadkaas waxaan rabnaa inay bulshada ka mid noqdaan. waxaan rabnaa inay gurihii caadiga soo degaan, meelaha xerooyinka ay ka soo baxaan, si nolol fiican u helaan, waxbarasho u helaan. waa dadkii beritoole dalkaa badbaadin lahaa. marka idinkana waxaan idinka rabnaa dhalinyaro sideen xal ugu helnaa arrimahaas barakacyaashana inaad ku darsataan qorshihiina. annaga waxaan rabnaa 4 sano gudahooda qof Soomaali inuusan xero ku nooleen oo guri oo uu ku noolaado.
taas waxay ku imaan kartaa annagoo iskaashana midnimadeena ka shaqeyna horumarkeena u istaaga sababta keentay barnaamijkan wacyigelinta iyo horumarintana arrimahaas ayaa ka mid ah ugu dambeyntii waxaan idinkula dardaarmayaa inaad kaalin fiican ka qaadataan barnaamijkan wacyigelinta horumarinta inaad u diyaargaroodaan 15 May in magaaladan dhalinyarada joogta inay yihiin dhalinyaro nabad jecel dowladnimo jecel horumar jecel in bulshadiina aad ku waanisaan aan idinka rabnaa annaga wax alaale wixii taageera iyo hormuuda diyaareed ku nahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.